saddexda sirood ee kacsiga dumarka. Gaaritaanka kacsiga waxay noqon kartaa mid ku adag dumar badan, gaar ahaan dumarka fircooniga loo guday. Laakiin fiidiyowgan wuxuu ku bari doonaa sida ugu fudud ee loo kiciyo dareemaha macaan ee dumarka. Si aad u ogaato kacsiga macaan ee xaaskaaga waxay u baahan tahay tijaabo badan. Galmada waxay ku siisaa farxadda guurka, haddii aad heshana waxaan kuu ballan qaadayaa in nolosha galmada aad u mahadcelin doonta. In laga keeno haweenayda biyaha ama la gaarsiiyo kacsiga meesha ugu sarraysa way ku yar tahay xirfadahan ragga Soomaaliyeed. Furaha ayaa ah in waqti badan lagu bixiyo ciyaarta horudhaca ah iyo barashada laba xubin ee ka mid ah jirka dumarka marka la kiciyo u horseedi dareen heer sare ilaa ay ka biyo baxaan. Sidoo kale wax dhib badan maahan in la fahmo qaababka galmada ee bixiya fursada ugu fiican ee kacsiga. Haddii ay ahaan lahayd in naasaha u dhuuqdo gaar ahaan ibta ama guskaaga ku soo fadhiisato ama in aad u salaaxdo jirkeeda. Si aad u ogaato saddexda siro ugu sarreeya ee kacsiga dheddigga waxaa ka mid ah. Marka ugu horreysa, waqti badan ku bixi ciyaarta salaaxida. Waxaa laga yaabaa inaad adiga kacsatay oo aad diyaar u tahay inaad wasto naagtaada si aad u hesho daqiiqado raaxo leh. Laakiin dumar badan ayaa u baahan kicin jireed iyo mid shucuureed badan si ay u kacsadaan una diyaargaroobaan galmada. Taasi waa sababta ay baashida iyo salaaxida ay aad muhiim ugu tahay. Marka aan leenahay ciyaarta salaaxa waxaa lala jeedaa sida dharka in aad adiga ka dhigto, naasaha u masaajeysid ama u dhuuqdid, timaheeda u qaqabatid, dusha, timaha, garbaha, dabada, cajaraha ilaa lugaha u masaajeysid. Furaha ayaa ah in la xoojiyo hordhaca ciyaarta hore. Waa in aad la timaado xasilooni iyo qalbi jileec. Ka digtoonow in aad si degdeg ama boobsiis ah ku qabanin hawshan. Dhab ahaantii, ciyaarta horudhaca ahi waxay bilaaban kartaa saacado ama daqiiqado ka hor intaanay galmadu dhicin, taasi oo daqiiqad kasta ka mid ah u diyaarin doontaa jirkeeda kacsi. Waa kuwan qaar ka mid ah talooyinka loo baahan yahay in aad labadiinaba niyadda gelisaan. Dhiirigeli maskaxdeeda. Dumarka qaarkood kacsiga maskaxdu waxa uu la mid yahay kacsiga jirka oo kale. Tusaale waa in aad la timaado waayo aragnimo galmo sida qoraal seksi ah ama wicitaan xiise leh oo aad ku dhahdo erayo jilicsan sida waan ku jeclahay, waan kuu baahanay, kaama maalmo iyo erayo iyada shaqsi ahaan u taabanayo. Arrimahan waxay sababi karaan in maalintii oo idil ka fikirto hadalladii aad tiri, jaceylna qalbigeeda kuu galo. Sidoo kale waxaad samayn kartaa inaad u keento hadiyad sida in aad u soo iibiso shumacyo, dahab, dhar, ubaxyo cusub, adigoo adeegsanayo erayo murti leh, waayo ereyada macaan waxa ay niyadda ku abuuraan jawi jacayl oo dareen leh. Waxaa kale oo muhiim ah inaad ogaato in dumar badan isu soo dhowaanshaha iyo taabashada jirkooda uu u horseedi kara dareen kacsi ku dheehan. Isticmaal taabasho jilicsan. Salaaxidda si tartiib ah loo silaaxo dumarka waxay abuuri kartaa xiisad galmo. Laabta geli, gacanta qabso, ama bowdadeeda taataabo. Kacsiga dumarka wuxuu u badan yahay mid ku kaco sida in aad dhunkanayso iyo in gacmahaaga ku wareegaan meelaha kacsi badan oo jidhkeeda ka mid ah. Fiiro gaar ah, waa sax, naasuhu waa aag kacsi badan, laakiin keligood maaha. Isku day inaad dhabarka ama bowdadeeda salaaxdo ama aad farahaaga geliso timaheeda. Ka dhig dhunkashadaada heer sare. Dhunkashada ayaa lama huraan u ah ciyaarta ka hor gogosha. Isku day inaad ka dhunkato naagtaada meel kasta oo jirkeeda ka mid ah, xitaa haddii ay ahaan lahayd inaad siilka u dhuuqdo oo aad gudihiisa carabkaaga ka geliso. Barashada meelo cusub oo laga dhunkado xaaskaaga waa madadaalo iyo faa'iido, iskuna day in aad ka bilowdo dhabarka qoorta ama garbaheeda. Ha iloobin inaad hadasho. Dumarku waxay u janjeeraan inay noqdaan kuwo hadal badan, sidaa darteed inaad u sheegto macaanka jirkeeda uu leeyahay iyo raaxada aad ka qaadanayso waxay kaa caawin kartaa inay jirkeeda kuu furfurto.
fadlan haddii aad ka hesho casharadan sabskaraab saar. Qodobka labaad, baro meelaha ay ka qaadato raaxada macaan. Waxaa jira 2 meelood oo muhiim u ah kacsiga dumarka. Waxaa ka mid ah kintirka. Kintirka waa hilib yar, waxaana ku jira dareenka ugu sarreeya ee dumar dareemi karaan, waxaana laga heli karaa meel u dhow meesha ugu sarreysa ee duleelka siilka. Kintirka waxaa ku daboolan maqaarkaas oo ka ilaaliya in uu kaco mar walba uu wax taabto, sidaas darteed waxaa laga yaabaa in aad ku qasbanaato in aad taabato ama leefto kintirka. Marka ay kacsto naagta waxaad ku ogaan kartaa maqaarka yar ee ku daboolan kintirka ayaa dib u laabanaya, hilibka kintirkana bannaanka ayuu u soo baxaa. Meesha kale waa gudaha siilka ee loo yaqaano G-spot. Meeshan G-da loo yaqaano waxay ku taallaa gudaha xubinta taranka haweenka. Waa xirmo xidido dareemo ah oo qiyaastii 2 inji ka koreeya lafta cambarka gudaha ee gidaarka sare siilka. Si aad u hesho G-spotka, si tartiib ah u geli fartaada gudaha xubinta taranka iyada oo calacalahaagu kor u soo jeedo, kadibna farta kor u laab. Ka digtoonow, haweenka qaarkood waxay jecel yihiin in bartooda G-ga si toos ah loo kiciyo, halka qaar kalena ay doorbidaan cadaadis yar oo ku aadan aaggan xasaasiga ah. Baad farsamooyin kala duwan oo weydii lamaanahaaga midka ay ugu jeceshahay. Qodobka 3, isku day hababka kala duwan ee galmada. Marka la eego waxa aad hadda baratay, waxaad si aad ah u qiyaasi kartaa in boosaska galmada ugu fiican ee kacsiga dheddigga ay ku jiraan meelaha siiya kacsiga ugu badan ee kintirka ama G-spot ama labadaba. Qaababka galmadana waxaa ka mid ah haweeneyda in ay ha kormarto. Booskan wuxuu siiyaa dumarka kacsiga ugu fiican ee G-spot marka ay guska isruxayso. Waxay sidoo kale u sahlaysaa in kintirkeeda xagto jirkaaga, taas oo sii kicinaya dareemaheeda. Gadaal ka soo geli. 4 dhulka u dhig ee dabada ka qabso. Qaabkan maaha mid aad ugu fiican kicinta kintirka, laakiin waxa ay dareen ka helaysa G-spotka marka uu guska sii galayo ama ka soo baxayo siilkeeda. Waxaan jeclahay inaad wax badan ka faa'iiday. Haddii weli dhib ka jiro kacsiga naagtaada, ha ka baqin inaad weydiiso lamaanahaaga si aad u hesho jawaab celin ku caawisa, si aad u hubiso inay jeceshahay waxa aad samaynayso. Dumarka qaar waxaa laga yaabaa inay rabaan baaris caafimaad lana eego haddii wax cudurro ah jiraan si ay u gaaraan awoodda kacsiga. Mahadsanid.